13 de octubre 1977, día 1. وصدح يتوانكي بيشي أكتوبر كون سغال بقول تضوية تضبعتنكي أباركوب يتوانكي الصبح نمو وانا دولماتكي بقول كوبي سيديتنا الديارة اللانشاد لغانا هلها وطنك جرمالكا waxaa diyaaradda saarna 86 qof oo rakaaba waxayna ka soo duushay garoonka Palma de Mallorca ee waddanka Spain waxayna ku socotay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka duuliyaha koowaad ee diyaaradda waxaa lagu magacaabi jiray Jerkel Schumann halka duuliyaha labaadna lagu magacaabi jiray Jerkel Viertel markii ay muddo 30 daqiiqo ah ku jirtay hawada ayaa waxa dhacday arrin la yaab leh hal mar ayuu jawiga oo dhan isbedelay afar qof oo rakaabka ka mid ah ayaa istaagay laba nin iyo laba dumar ah waxay la soo bixeen baastoolada iyo bambooyin waxayna sheegeen in ay diyaaraddu afduuban tahay afarta qof ee afduubatay diyaaradda ayaa ka mid ahaa jabhad ay lahaayeen Falastiiniyiinta xilliga kooxda afduubatay diyaaradda ayaa waxa ay rabeen in loo soo daayo maxaabiis ka xidhnayd hogaamiyaha kooxda afduubka geysatay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Suhayl Yuusuf oo intii howlgalku socdayna la magac baxay Shahiid Maxamuud hogaamiyaha dablida Suhayl Yuusuf ayaa waxa uu furay baastoladiisii isagoona ku amray caawiyay pilotka inuu ku biiro rakaabka kadib hogaamiyihii kooxdu waxa uu galay gudaha halkii laga wada diyaaradda waxaana uu ku amray kabtaankii inuu ku leexiyo diyaaradda jasiiradda Qobrus wadii diyaaradda ayaa sheegay inayna arrintani suurtagal ahayn sababtoo ah shidaalka diyaaraddu ma ahayn mid geyn kara jasiiradda Qobrus balse ay ka habboon tahay inay ku degaan Roma oo ah caasimadda Talyaaniga si ay halkaas uga sii qaataan shidaal dheeraad ah arrintaasina waxay noqotay mid ay u riyaaqaan dablaydu wayna ka ogolaadeen Aeropuerto de Roma, Italia. markii ay diyaaraddu soo cagadhigtay magaalada Roma ayaa waxay dalbadeen afduubayaashii diyaaraddu in la soo daayo 12 maxbuus oo ka tirsanaa kooxda ciidamada guduudan oo ahayd fallaago Jarmal ah gacan saarna la lahaa jabhadii Falastiiniyiinta waxaa kaloo ay dalbadeen in la siiyo 25 milyan oo lacagta Mareykanka ah markii ay dawladda Jarmalku maqashay dalabkooda ayaa wasiirkii arrimaha gudaha Jarmalka galbeed waxa uu xidhiir la sameeyay wasiirkii arrimaha gudaha ee Talyaaniga waxa uu ka codsaday in diyaaradda taayirada laga banjariyo si ayna u samayn duulimaad kale wasiirkii arrimaha gudaha Talyaanigu waxa uu la tashaday madaxda Talyaaniga kadib markii ay gurfeeyeen arrinta ah in diyaaradda laga banjariyo taayirada waxa ay noqotay mid u cuntami weyday dalabkii dawladda Jarmalkuna daaqada ayuu ka baxay saraakiishii Talyaanigu waxa ay dableydii ugu shubeen diyaaradda shidaal waxayna ka codsadeen in ay la dhaafaan diyaaradda ay wataan markii ay kacday diyaaraddu waxa ay u jihaysatay dhinaca magaalada Larnaca ee jasiiradda Qobrus 8 habeenimo ayay diyaaraddu waxay caga dhigatay magaalada Larnaca ee jasiiradda Qobrus halkaana waxa yimid xubno ka tirsanaa jabhadda Falastiiniyiinta waxayna la xiriireen gudoomiyaha dablida Captain Mahmoud Are you Captain Mahmoud? Yes, I am Captain Mahmoud. Can you speak with me in Arabic, please? I'm going to speak with you, okay? saaxaatay isku dayadii lagu badbaadinayay diyaaradda ayaa noqday mid dhicisoobay waxaana diyaaradda loogu shubay shidaal waana la sii dhaafiyay duuliyaha koowaad ee diyaaradda ayaa kooxda diyaaradaha hagta ee garoonka Qobrus ka codsaday in ay ku beegaan khadka duulimaad ee ku xidhi kara magaalada Beirut waxaana loo fuliyay codsigiisii markii ay hawada sare gashay diyaaraddu ayaa waxa loo sheegay kabtanka in uu xidhan yahay garoonka magaalada Beirut ayna suurtagalna ahayn in ay soo caga dhigtaan dana waxay isku dayeen in ay ku degaan magaalada Dimashq ee Suuriya hase yeeshee mas'uuliyiinta garoonka Dimashq ayaa diiday in ay diyaaraddu soo caga dhigato garoonka Dimashq waxay isku dayeen mar kale inay soo caga dhigtaan Kuwait iyo Baghdad balse sidoo kale waa laga diiday haddana waxay isku dayeen in ay caga dhigtaan Bahrain iyagoo ku andacoonaya in ay diyaaraddu tahay bilaa shidaal lana siiyo xuquuqda caalamiga ah ee haddii diyaaraddu ku timaado xaalad emergency ah ay ka degi karto garoonka u dhow maadaama uu shidaalku una ku filnayn waxaana loo fuliyay dalabkoodii kowdii habeenimo ayaa waxay diyaaraddu caga dhigatay Bahrain markii ay caga dhigatay Bahrain ayaa waxa hareerayay ciidamada amniga ee Bahrain madaxa kooxda dablida ayaa waxa uu ku hanjabay in uu khaarijin doono mid ka mid ah duuliyayaasha diyaaradda haddii ayna faraha kala bixin diyaaradda ay wataan kadib waxa amar lagu siiyay ciidamada in ay faraha ka qaadaan diyaaradda waxaana loogu shubay shidaal waxaana u jihaysatay diyaaraddu dhinaca Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai markii ay soo gaadhay magaalada Dubai wasiirka difaaca Imaaraadka ayaa waxa uu ugu baaqay dablida in ay sii daayaan rakaabka balse dheg iyo jalaaq midna looma yeelan madaxa dablida ayaa waxa uu ku hanjabay in uu layn doono rakaabka qarxin doonana diyaaradda haddii aan loo fulin dalabkiisa oo aan diyaaradda shidaal loogu shubin madaxda Dubai ayaa waxay ogolaadeen dalabkiisa waxaana loogu shubay shidaal 12 habeenimo ayay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee Dubai waxayna u jihaysatay dhinaca caasimadda Cumaan halkaas oo boqortooyada Cumaan ay diideen inay soo caga dhigato garoonkooda waxayna u leexdeen dhinaca Cadaan
waxayna ahayd maalintii shanaad ee ay afduuban tahay diyaaraddu. mas-uuliyiinta ciidamada cadan ayaa waxa ay amar ku siiyeen in ay sii dhaafiyaan diyaaradda oo ayna sii joogi karin garoonkooda. WDna waxay amar ku siiyeen wadihii diyaaradda inuu kiciyo diyaaradda, hase yeeshee waxaa ka biyadiiday kabtankii diyaaradda Mr. Schumann sababtoo ah waxa uu ka caydhiyey xaaladda diyaaradda. waxaa kabtanka loo ogolaaday inuu ka dego diyaaradda oo uu eego xaaladda diyaaradda bal inuu dhaawac soo gaadhiyo in kale. waxaana uu fursad u helay inuu la kulmo mas-uuliyiinta garoonka si ay u badbaadiyaan rakaabka, hase yeeshee mas-uuliyiinta garoonka cadan waxay u sheegeen inayna waxba ka qaban karin diyaaradda. kabtanku waxa uu soo noqday isagoo aad u niyad jabsan. WDuna waxa ay ka shikiyeen maqnaanshii duuliyaha, arrintaas oo sababtay in ay toogtaan kabtankii diyaaradda. kadib waxaa loogu shubay shidaal, waxayna WD amar ku siisay duuliyihii labaad inuu kaxeeyo diyaaradda. 6dii subaxnimo 17kii bishii Oktoobar 1977 ayaa diyaaraddii Lufthansa waxa ay u jihaysatay dhinaca Soomaaliya. waxyar kadibna waxay kasoo degtay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde. markii ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa waxay WD codsatay in loo keeno maxaabiistii laga haystay si ay u sii daayaan diyaaradda iyo rakaabkaba. dalabkaasina waxa uu noqday mid ay dowladda Jarmalku aqbasho, balse ay qaadan doonto saacado badan in la soo gaarsiiyo maxaabiista Muqdisho. arrintan oo dhab ka ahayn dowladda Jarmalka, balse ujeedku ahaa sidii WD loo dhaban habaabin lahaa. waxayna mas-uuliyiinta Jarmalku xidhiidh la sameeyeen dowladdii militariga ee Maxamed Siyaad Barre. waxayna dowladda Soomaaliya Jarmalka u sheegtay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay badbaadinayaan rakaabka, balse dowladda Jarmalka ayaa codsatay in ogolaansho loo siiyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Jarmalku in ay yimaadaan Muqdisho. dowladdii militariga ee Soomaaliya iyo Jarmalku waxaa dhex maray wada hadallo dheer, waxayna ogolaansho ka heleen dowladdii Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray ciidamadii Jarmalka galbeed. Oktoobar 18 1977 ayaa ciidamada Jarmalku waxa ay fuliyeen howlgalkii lagu badbaadin lahaa diyaaradda, iyaga oo gacan ka helay dowladdii Soomaaliya, gaar ahaan ciidamadii militariga ee Soomaaliya. dowladda Jarmalku waxay aad ugu riyaaqday sida wanaagsan ee dowladda Soomaaliya ugu hagar baxday. xilligaasi waxaa lagu tilmaamaa xilligii ay qooqanay dowladdii Soomaaliya. annagoo ka xun ay misna nagu kaliftay ay noo sheegeen in ay dileen pilotkii diyaaradda waday. We are very deeply sorry to learn that these hijackers have killed the pilot of the plane. se iyagu noogu sheegeen. That's as they told us. waxay nagu yidhaaheen meydkiisa naga qaada, waayo dee wuxuu nagu hayaa muxuu ahay meydku. They told us to remove the body. waana ka qaadnay meydkii, waxaan geynay meel lagu We did so. sidaasna waxaa lagu badbaadiyay diyaaraddii iyo rakaabkii saarnaa. WDna waxaa laga dilay 3 qof. Y la abate. Cayó al suelo. waxaana ka badbaaday hal gabar oo keliya, waxaana lagu dhex xukumay gabadhaasi Muqdisho dhexdeeda.